waxaan walaalahay rabaa inaan idinla wadaago laba qodob oo aan isleeyahay malaha muhiim bay ahaan lahayd gaar ahaan dadka qurbaha ku nool iyo meel kasta ay ummaddu joogaanba noloshu way badan tahay wayna ballaaran tahay hal dhinac keliyana uma baahna in laga fiiriyo waxay u baahan tahay meelo badan in laga fiiriyo maalmahan dambe waxaad arkaysaa in ay soo badanayso draamadu inay soo badanayso qayladu inay soo badanayso maxaan ku dhahdaa negative-ka maxaa yeelay negative-ka ayaa si fiican u gadmaya oo dadku ay dhegta u raaricinayaan laakiin positive-ka inta badan waxaad moodaa in laga gudbayo laakiin marka shar laga warramayo ee dhibaato laga warramayo ee masuubo laga warramayo dhegtaa la dhigaya u fiirsada dadka netka soo gala meeshuu doona haado platform kasta u fiirso waxaad arki cidda dhib iyo dhibaato ka sheekaynaysa kumanaan baa dhegaysanaysa laakiin cidda ka sheekaynaysa wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo waxaad arkaysaa in ay dadka dhegaysanaya ay yihiin dad aad u kooban markaad eegtana waxaad isleedahay waaba xaqiiqo waxan shaydaan baa ku lugle maxaa yeelay shaydaanku wuu qurxinayaa wixii oo wuxuu ka dhigayaa waxaad qurux badan aayad quraan oo cajiiba ayaa maaragtay aad ii soo jiidatay laabtayda waan sheegaana inta badan runtii aayadda ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hal nunabbi'uka bil akhsariina a'maala suuratu kaaf hal nunabbi'uka bil akhsariina a'maala dadkan way shaqeeyaan camal bay qabtaan waxbay sameeyaan laakiin wax ay qabtaan iyo wax ay ka shaqaynayaan iyo wax ay samaynayaan iyo wax 24/7 koodaas oo ku baxayo waqtiga intaa la eegi kuma baraarugsana in ay khasaaro kala mudmi karaan ilaahay wuxuu ma kuu sheegnaa ma kuu warranaa kuwa camal samaynaya laakiin camalkoodu uunan fiicnayn khasaaraha hal nunabbi'uka bil akhsariina a'maala alladhiina dhalla sa'yuhum fi alxayaati addunya wa kuwa camalkoogu socodkoogu dhaqaaqoogu ficilkoogu hadalkoogu samayntoodu ay xumaatay adduunyada intay joogaan wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca ayagoo u malaynaya marka waxa ay samaynayaan inay wax toosan iyo wax saxan ay tahay oo wanaagsan su-aashu marka waxa weeyaan standardka aan wax ku fiirinaya waa maxay mahadsanidin